arrintani waa mid naadir ah oo ku cusub magaalada Gabiley mid kamid ah diroolada bajaajka ayaa arooskiisa waxa lagu galbiyay tiro badan oo gaadiidka bajaajka ah bulshada magaalada Gabiley waxay ahayd maanta maalin ay arkeen waxa ku cusub geeyiga iyagoo dhankooda raacinayay mashxarad iyo damaashaad ay ku qaabileen farxadda bajaajka lagu galbinayo daawada ma jeceshahay in arooskaaga lagu galbiyo bajaaj wadooyinka magaaladu waxay ahaayeen kuwa mashquul ah oo ay ku kaliyeysteen bajaajku iyagoo maraya jidadka waaweyn si diroolada bajaajku ay isku fahansiyaan inay si wada jira uga qayb qaadanayaan mid kamid ah diroolada bajaajka oo aroosa bajaajku waa kuwa ugu muhiimsan ee bulshadu imika adeegsato balse maanta waxay dhamaantood u dareereen in ay galbiyaan diroolkan caruuska ah iyagoo ka turjumaya in arrintan ugubka ah bulshada u horseedi karto in ay haddi kadib aroosyadu isticmaali karaan bajaajka إسماعيل محمد جامع وأبتيجو ويلك أروسكا وحنا وقصة شرمادة دقمة فرويني سي ويلك أبتيجو يهاي ولا وداعو فرحة أروس كيسا مركه هلا إلهي أيام محابس كله مركه الله بعد وحنا هالكن إحنا بليا وقدر إياه نكم ومرجيس الله يرحمه أحمد عبدي محمد آدم وعيد شيء ولا شيء وحنا لا يهاي همبليو أفتي وحن هو همبليين يا تعدي رسولك بارك الله لك وجمع عليك أنت كذب إيا تطارن دنيا هل كان إن كيدا هذا ويكر الأفتي وهاي كل أفتي وحلا لو هو يو بلا ناسا كل أفتي وان كاغا هذا اللي بيدن كذا اللي هاي كالقاع البطن هاي كوا عندلي إيا كوا الله بشيبه waxaan la yaabtay Allah idin barakeeyo reerkii lagu nastay lagu nagaado wabal khayr qaba kala helaa lagu nasta Allah idiga yeelo waxaan kan ku dardaarmayaa markii hore in yar waxaad ahayd hadda la beekan caruurtiya maanta waxaad tahay laakiin mas'uul fuulay oo xaasi u bad hadda la beedankeeda xilkooda qaaday waxaan leeyahay xilkaasi Allah kugu asturo hadda la beedankeeda leeyahay baahadii moogtay hadda la beedankeeda leeyahay madax ana Allah ka yeelo ساسان كودا تاري أفتي بارك الله وحكنا دوري الرالي هيجا هذاني حكنا كسر ما دوري كسرامو ويومها بريدة أنا رأيه وصفي عن نقرأ قريب كلي حفلة إن كان أنا أفتي واحد ويب سايت كلي هذا كيبلي رتبت وحنا لي هيدي كنا سيدا كلي همبليو وتكون هتنتهين وارتقاءك أنا يقبشين أنا وقت ما ده هويندن وهبررت ويل كاروسكا waxay tilmaamtay inay maanta farxad balaaran u tahay iyadoo bulshada ugu baaqday in aroosyada hadda kadib loo isticmaalo gaadiidka bajaajka alxamdulillaah ilaahay way ku sameeyay farxadii inaan kayga inaan kor habaryar u ahay magacayga waxa la dhahay Ifraax Maxamed Jaamac inaan kala habaryar baan u ahay ma sha Allah waxaan ku galbinay gaadiidka bajaajka insha Allah ilaahay idamkiisa waxa la sugaynaa arooska sida yasiin lamida kadib arooyinamada bajaajada wadanaha laga waraya hawlaha ka warhayaan qaar kamid ah diroolada bajaajka ee galbinaya arooska ayaa arintani ku micneeyay tusaale wanaagsan oo ku dayasho mudan aniga magacaygu ah Yuusuf Maxamed Yuusuf kana mid ah mulkiilayaasha bajaajta amba dirooleynta bajaajta maanta waxaan sameynay dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore dhici jiray gobolka waxaanu sameynay caruuskii ugu horeeyay ku qaadnay bajaaj aan ku galbinay bajaajyadii joogay Gabiley oo dhan waxaanu leenahay dadka kale caruusyada waxa magaalada bajaajta iyadna waa gaadiid cusub oo soo biiray gobolka imika waxaan ku qaadnay caruuskii oo saarnay waxaan ku geynay meeshii u baahnaa wina sadaba gelinay Gabigoogii waxaan leenahay kulli marka aroos la galbinayo ee gawaarida loo yeedhanayo kulli way kala lacag badan yihiin baalaha marka la eego baalahani marka dhinac loo eego ka jibay yihiin gaadiidka wayna ka qurux badan yihiin waana ka badan yihiin marka badil la eego waxay toban baabuur qaadan lahaayeen bay iyadu ka timir qaadanaysa
maanta waxa aad u mahadleen walaalkeen caruuska oo saaxiibadii aad iyo aad uga qayb qaateen oo soo dhaweeyeen oo si fiican looga tumay magaalada bulshooyinka reer Gabiley waxaan u sheegay bajaaj uu yahay gaari maanta ay ina tuseen gaari loo kireysan kara aroosada ama u tumi kara uu yahay maanta xitaa uu ka shiib macay ama uu ka qurux badan yahay gaariyaasha kale wada arkaysan bulshadu sida qaabka ay isku daba raaceen sida kamarlaashu lagu dubay wada arkaysan marka waxaan hadda aroosada ka dalbanaa bulshada Gabiley in wixii la kireysanay bajaajada ay yihiin gaari la kireysan karo oo maanta tusaale u ahayd arooskii walaalkeen si fiican loogu soo dhaweeyay ee bulshada maanta aad iyo aad loo hadalhayay hadalhaynteeda aad u badatay marka bulshada waxaan sheegayaa in bajaajlida wixii aroos samaysanaya ama doonista laga qayb geliyo way waa gaari maanta waxay cadeeyeen inuu gaari yahay gaariyaasha kamid ah baga aad baan ugu hambaleynayaa saaxiibadooda aad uga gijiyay ee aad ugu la shaqeeyay aad baan salaamaya baga waxaan aad ba mahadsantihiin nin walaal caruusina waxaan leeyahay saa ula shaqeeya bajaajadana waxaan leeyahay si gaar ah loo eego oo inay gaariyiin hal la eego oo la arkayeen jiibka iyo quruxda isku dabaqana la arkayay marka waxaan aad u salaamaya caruuska mar labaad kana saaxiibadiisa qaaliga ah Axmed Cabdi Maxamed waa wiilka arooska wuxuu saaxiibadii uga mahadnaqay sida ay bajaajka ugu soo galbiyeen iyo qaabka ay u agtaagan yihiin waxaan hambaleynayaa saaxiibayaasheeda qaaliga si fiican soo dhaweeyay teenu ilaahayna kuulkeeda ku khayr qabilaha ka dhigo waxaan hambaleynayaa saaxiibayaasheedana waxaan leeyahay teenu kun ilaahay saasoo kala niga dhigo daawada ma qabtaa fikirka ah in arooskaaga ama arooska wiilkaaga lagu galbiyo gaadiidka loo yaqaan bajaajka waa markii ugu horeysay ee aroos ka dhaca magaalada Gabiley lagu galbinayo gaadiidka bajaajka arintan waxa si weyn u soo dhaweeyay bulshada magaalada Gabiley waana aroos saacadii ugu dambeeyay si weyn looga hadlayay magaalada Gabiley oo bulshadu ay aad u soo dhaweysay waa Jaafar Caawil Harari shabakada wararka ee gabiley.net magaalada Gabiley